السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان داودياشين شرفت له كحرن جنال كينا سو دوااد ولا ليال كسو دواada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u sugnaatay nimco oo idil iyo mahad oo idil. allahaasoo na siiyey nimcooyinka midda ugu weyn oo ah nimcada islaamka iyo caafimaadka iyo nimcooyin kale oo fara badan oo aan la tirakoobi karin. alxamdulillaahi daa'iman wa abada. ilaahay uu noo ziyaadiy intaan haysanina sii intii walaal ee xanuunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad taam ha siiyo. intii kurbaysan ilaahay kurbadaha ka qaado. intii murugaysan ilaahay murugadaha ka qaado. qof kasta oo muraadkiisa oon macsi lahayn alle subxaanahu wa tacaala ha siiyo. intii awlaad raadis ah ilaahay ha siiyo awlaad barakaysan oo baariyaal ah. intii haysatana ilaahay baariyaal ha uga dhigo oo ha u xifdiyo. intii guurdoon ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala guur degdeg ah oo wanaagsan ilaahay ha ku hanuuniyo. intaa kadib walaalaha khayrka jecel aan isxasuusino oo isku dhiirigelino ku salinta xabiibkeena Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. soo dhawaada walaalaha khayrka jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan filaynaa in haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray oo khayr kula doona ood ka faa'iidi doonto wax khayr ah biidnillaah. adigana aad noqoto qof walaalihiis kala gaarsiiyo si ay khayrka uga faa'iidaan. waayo qofkii dadka khayrka tusa qof hadda aad wax khayr tusto oo qofkaas uu sameeyo waxaa la mid tahay adigoo sameeyay. qof ayaad wax wanaag u tilmaamtay ama wax wanaag tustay qofkii wanaagaas ayuu sameeyay adigii oon samaynin ajarkeeda ayaad leedahay. qofkiina ajarkiisa lagama nusqaaminayo. marka waa faa'iido aad iyo aad u weyn. marka dadka khayrka tusa waxay la mid yihiin iyagoo sameeyo kale. marka faafin walaalaha sharafta badan muuqaalka maanta waxaan idin wadaa walaalahayga qisas ku saabsan istighfaarta iyo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu dunuubtiisa dhaafo ama dambiyadiisa dhaafo mucjisaadka uu arkaayo. bini aadan haddii aad tahay waxaa laga yaabaa maanta qof kaloo bini aadan haddii aad wax uga baahan tahay waxaad iska ilaalinaysaa qofkaas inuu kaa caroodo inuu kaa xanaaqo inaad dembi ka gasho. bal ka waran ilaahay subxaanahu wa tacaala ee adduunkan iyo addoomaha iyo wax kor saaran abuuray qofkii dembi ka galay haddana rajaynaya inuu ilaahay wax ka helo. marka istighfaarta waa qofka ayay dhaqaysaa. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu arrin ka rabo marka hore waa inuu toobad keenaa waa inuu dambiyada iska dhaqaa. waayo dambiyada waxay ka mid yihiin waxyaalaha qofka ka hortaagan in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiisa aqbalo. waxaa laga yaabaa mar walba inaad ducaysato aan ducadaada la aqbalin balse aad gashay dambiyo aad ogtahay kuwaad ogeen kuwa yar kuwa weyn. marka inaad ilaahay barido inaad ilaahay wax weydiisato waxaa ka horeysa in aad istighfaar la imaato oo ilaahay ka dalbato dambiyadaada inuu ku dhaafo. marka ilaahay markuu dambiyadaada ku dhaafo wax walba ayaad helaysaa. sidoo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa noogu sheegay wuxuu yiri faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara. ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiista. dambiyada adigu dhaafay waa nimco kale inuu ilaahay dambiyada noo dhaafayo. waayo haddii la dhihi lahaa qofkii mar dambi galo waa siduu u dhacay oo kama soo laabanayo ma toobad keeni karo dhibaato ayay ahaan lahayd. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dambi dhaaf weydiista oo dambi dhaaf weydiista rabbigiin ha idin dambi dhaafee yursilis samaa calaykum midraara. marka meeshaas waxaad ka garanaysaa qofka haddii dambigiisa loo dhaafo in uu nimco walbo iyo wax walba uu helayo. haddii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiisato oo ku dambi dhaafo waxaa lagu helayaa barwaaqo waxaa lagu helayaa roob wayumdidukum biamwaalin wabaniina. waxaan ku helaynaa awlaad waxaan ku helaynaa xoolo. marka istighfaarta ayaa ka horeyso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiisato. markii uu ku dambi dhaafo ayaad nimco helaysaa ayaad maal helaysaa ayaad awlaad helaysaa. marka muhiimadda intaas la eg ayay leedahay istighfaarta. qisadeena koowaad maanta waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaa jiray ani iyo gabar aan walaalo ahayn. gabadhii aan walaalaha ahayn waxay tiri waxay ahayd gabar ani iga weyn oo jaamacad dhamaysay shaqo ayay weysay ayay tiri guriga ayay iska joogtay.
anigana waxaa dhacday in markii iskoolka aan dhameeyay aan waayay jaamacad qarash aan ku galo waxaan in badan raadiyay kuliyada aan rabo jaamacad wanaagsan oo iga caawisa dhanka dhaqaalaha laakiin waan waayay waxaan ku qasbanaaday guriga inaan iska joogo gabadhan walaashay ah ee jaamacadda dhameysayna guriga ayay joogtaa anigana dugsigii sare ayaan dhameeyay oo qarashka jaamacadda ayay reerkeena la yihiin sidaas ayaan guriga ku wada joognaa maalin maalmaha kamid ah waxay tiri sheekh ayaa ila taliyay wuxuuna igula taliyay in aan akhristo istighfaarta waliba wuxuu ii sheegay markii aan tukado meeshii aan ku tukaday anoo fadhiyo inaan kun mar dhaho astaghfirullah wa atuubu ilayh ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kurbada iga feedayo waxbarashadana si bilaash ah ilaahay idankiis aan ku heli doono kurbadii i haysatana uu iga feedi doono waxay tiri guriga ayaan imaaday gabadhii walaashay ayaan u sheegay markii aan u sheegay waxaan nidhi aan bilowno akhrinta istighfaarta waxaan go'aansanay salaad walba markii aan ka baxno meeshii aan ku tukanay anagoo fadhino inaan kun mar dhahno astaghfirullah wa atuubu ilayh kun mar ayaan dhahaynaa salaad walba markii aan ka baxno shanta waqti salaad walba ayaad dhahaysaa kun mar kadib salaada subax markii aad tukato kun mar salaada duhur markaad tukato kun mar salaada casr markaad tukato kun mar salaada maqrib markaad tukato kun mar iyo salaada cisho markaad tukato kun mar yani salaad walba markaad tukato meeshii aad ku tukatay adoo fadhiya ayaad dhahaysaa astaghfirullah wa atuubu ilayh kun mar waxay tiri 2 isbuuc ayaan aniga iyo walaashay sidaas sameynay 2 isbuuc ayaan aniga iyo walaashay sidaas sameynay ayay tiri والله waxay tiri wax aan filayn ayaan arkay sheyga ugu hore ee aan helay waxay tiri inuu aabahay isiiyo lacag uu san waligiis isiinin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aabahay iga soo qaaday maalin kama soo wareeganin yani maalintuu aaba lacagta isiiyo 24 saac kama soo wareeganin walaashayna waxay heshay shaqo markii ay saas walaashay shaqo u heshay subaxii ku xigana ilaahay wuxuu ii fududeeyay jaamacad kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee wadanka ee hadda ka hor aan codsi geystay hadda ka hor aan u dan sheegtay laakiin aan jawaab ka helin in ay ii sheegeen inay diyaar tahay kuliyadii aan rabay waliba si bilaash ah ama si free ah aan ku dhiganayo waxay tiri aniga iyo walaashay ilaahay subxaanahu wa tacaala 2 isbuuc oo kaliya ayuu noogu rumeeyay riyadeenii kurbadiina nooga fiiday waxaan ku helay ayay tiri lacag 24 saac iyadoo ka soo wareegin walaashay waxay heshay shaqo maalinkii ku xigayna waxaan helay jaamacad free ah waliba jaamacadaha ugu waaweyn ee wadanka kamid ah marka waxay tiri nimcadaas ayaan ku arkay istighfaarta qisadeena xigta ee maanta waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaan ku noolaa nolol aad iyo aad u adag nolol cariiri ah waxay tiri mar walba waxaan ahaa qof isdhaho maxaad adduunyada u imaatay maxaad sidaan u tahay yacni nolol aad cariiri u ah ayaan ku noolaan jiray markii dambe waxaan bilaabay ayay tiri inaan akhriyo istighfaarta maalin walba waxaan akhrin jiray 10,000 oo mar ayaan dhihi jiray astaghfirullah 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 markii aan muddo bil ah waday waxay tiri waxaan galay janno adduun yacni murugadii kurbadii cariiri wixii ahay oo idil ayuu alla subxaanahu wa tacaala iga dulqaaday waxaana kuriyooda ayay tiri anigoo kacbada joogo fasiraadeeda markii aan raadiyay riyadii aan kuriyoodana waxay noqotay in dambiyadeediyo idil lii dhaafay ayaan ku arka ayay tiri fasiraada riyadeyda inay tahay nolosheedii waxay noqotay nolol fudud nolosheedii waxay noqotay nolol farxad leh waxay kaloo tiri ducadeyda ilaahayow haddii aan dhaho waa la ajiibayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisto waa la ajiibayaa ayay tiri alxamdulilah waxaan noqday mustajaabu dacwa oo waxaan noqday gabar ducadeeda la ajiibo qisadeena ugu dambeyso waxaa ka sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaan ahaa qof aad iyo aad ay nolosha ugu adag tahay oo dhaqaalaha ayaa igu adkaayay tiri waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta astaghfirullah wa atuubu ilayh ayaan bilaabay waxaan ka arkay ayay tiri group ay gabdho isku dhiirigelinayeen in la akhriyo istighfaarta anna waan bilaabay ayay tiri maalin walba waxaan istighfaarsan jiray 1500 oo mar
ayaan dhihi jiray maalin kasto astaghfirullah wa atuubu ilayh wallahi waxay tiri waxaan helay lacag fara badan waxaan ka helay qof aanan ka filaynin noloshayda qof aan isdhihin weliga ay wax ku siin doonaa xitaa haddii aad ku oyso oo aad u baahato oo aad barido qof aan islahayn wax waad ka helaysaa ayaa isiiyay wuxuuna isiiyay lacag fara badan oo aanan filaynin alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbadii waa iga feeday xoolo fara badanna waa uu isiiyay waan ku faa'iiday ayay tiri istighfaarta marka ballanqaadyada ilaahay ma ahan wax been ah waxaa laga yaabaa qof bini aadan amaanta oo adigoo kale oo waxba ku dheereen oo xitaa ballantii uu qaaday haduusa ilaahay qadarin aanan awoodinba inuu oofiyo haddii uu ku dhaho sidan ayaan kuu samaynayaa inaad aaminto oo rumaysato bal haddaba ka waran ballanqaadka ilaahay runtii waa wax la hubo oo run ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dambiyadeena inuu dhaafo dhammaan muslimiinta dambiyadooda inuu dhaafo waalidkiina soo barbaariyay na soo koriyay intaana la soo ekeysiiyeen inuu dambigooda dhaafo naguna kulmiyo naguna casuumo jannaati alfirdowsi alaclaa waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel ee nagu xiran muuqaalka meel dheer gaarsiiya si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan like na saara si uu u faafo muuqaalka oo dad badan ay u arkaan wassalaamu calaykum